maalin wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee telefishinka dalsan oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho anigoo Firdawsi Saal ayaa soo koobaya qodobada waxa ugu waaweyn Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay in ay weerar ku qaadeen deegaanka Weelmareer ee ku dhow magaalada Gaarisa ee dhacda waqooyi bari dalka Kenya ila wareed dhinaca ammaanka ah ayaa laga soo xiganayaa in Al-Shabaab ay burburiyeen tower isgaarsiineed oo ay lahayd shirkadda isgaarsiinta ee Safari Telecom taasi oo ay ku lahayd deegaankaasi Al-Shabaab waxa la sheegay in towerkaasi ay burburiyeen kadib markii ay dagaal la galeen ciidanka dawladda Kenya ee ku sugan deegaankaasi weerarka oo ka dhacay isla markaana ay burburiyeen xarumo ganacsi dhinaca kale ciidanka ammaanka dalka Kenya ee ilaalada ka hayay deegaanka Al-Shabaab ay weerareen ayaa la sheegay in ay dib u gurteen kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka awood badiyeen shirkadda isgaarsiinta Safari Telecom ayaa la sheegay in ay khasaare maaliyadeed oo aad u badan ka soo gaareen howlgallada Al-Shabaab ay sanadii la soo dhaafay ka geysanayeen waqooyi bari dalka Kenya madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray wareegto oo ku mamnuucayo ama lagu joojinayo canshuurta iyo canshuur dhaafkii loo sameyn jiray hay'adaha dawladda iyo kuwa caalamiga ah waxa wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni lagu ogeysiyay wasaaradda maaliyadda hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda in la joojiyay dhamaanba canshuurta iyo canshuur dhaafkii loo sameyn jiray hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay sidoo kale waxa wareegtada lagu ogeysiyay dhamaanba madaxda maamul goboleedka Puntland in la joojiyay canshuur dhaafkii iyo canshuur nimista loo sameyn jiray hay'adahaasi madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waa markii labaad oo soo saaray wareegto tan iyo markii la doortay 8 bishan aynu ku jirno ee Janaayo Professor Yaxya Sheekh Caamir oo ah dhaqaalayahan marna ka soo shaqeeyay bangiga dhexe ee dawladda ayaa waxa uu ka hadlay qorshe la sheegay in gudoomiye cusub loogu sameynayo banka dhexe ee Soomaaliya Professor Yaxya Sheekh Caamir oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka dalsan ayaa waxa uu sheegay in bangiga dhexe ee Soomaaliya uusan gudoomiye ka noqon karin qof ajnabi ah waxa uu sheegay in qofka gudoomiyaha noqonaya oo ku takhasusay suugaanta Ingiriiska halkaan aan looga baahnayn heesa iyo dhaqan sida uu ku sheegay wareysiga gaarka ah ee siiyay telefishinka dalsan sidoo kale Nature Reporters oo ah ninka la rumaysan yahay in loo magacaabi doono gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa la sheegay in horey looga eriyay bangiga adduunka isagoo uu sheegtay in uu ka ruqsaystay shaqadaasi Yaxya Sheekh Caamir waxa uu tilmaamay in sharciga dalka uu muhiim yahay in aad loo adkeeyo isla markaana laga ilaaliyo qaladaadka dhacaya Yaxya Sheekh Caamir ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in shakhsiyaadka u tartamaya gudoomiyaha bangiga dhexe aysan noqon doonin kuwo awood ku leh hay'adaha dawladda warka koobnaa oo daawadayaal idinkaga imaanayay telefishinka dalsan xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho anaga inta wararkani oo faahfaahsan waxaad daawan doontaan haddii Allah qadaro saacad marka ay soo gaarto 4 galabnimo inta ka horeysa waxaan idinkaga taginaa maalin wanaagsan